السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله يوعد السلامي سيجارة مسج كان وحان ربعنا وهذا له نندل يراه أو دولية صره وولالك للفؤاد كحدا ودنك جيبوتي وحلقة بين السويديو محوي شيخ أحمد وهذا ليا ويلكاس وحان وهذا ليا من منطلق إنساني ومسلم reer Jabuuti waa dad walaalo ah waxa naga dhaxeeyay dhiig waxa naga dhaxeeyay islaamnimo waxa naga dhaxeeyay walaaltinimo waa inaan wixii goomoon iyo qofka ee dhibaataysan aan ka hadalo waa inaan qofka sharafta lehna aan ka hadalo waa wadan walaalahaya waa dad walaalahaya waxa uu ku jiro walaal fu'aad iyo message-ka uu soo duubay wallahi la yatahammal insan ووحسن قف حمل كرين كيف يعيش مسلم في حمام يا عقلاء سيداب قف مسلمه ونولان كرام مسقول كده أول شرفتي مسلمك كي نبي الله محمد يلي صلى الله عليه وآله وسلم كعبض شرفت بضن والله مؤمن كشرف بضن سيداب وحمل كرا قف بن آدم بلهن أن كجرنو أنا ورقة جبوت متجن لكن waxaa la ii sheegay waxaan ogahay inay kulushahay waxaan ogahay bilahan aan hadda ku jirno bishan 6 iyo 7 iyo 8 inay tahay bilaha ugu sii kulo billahi alaykum sideebu qolku qofku ugu jiri kara qol yar oo xidhan ama musqul gudaheed oo xidhan away islaamnimadii away insaaniyadnimadii away naxdintii away sharaftii وبالتالي ولال كاننا وحوها ولال شرف له سيدا أن مقلي أو أشرفته وحان كوضا قف إنسان لليراء أو متعلمة وحان ربا مسج إن أجيديو مدحوينها دولة ولا جيبوتي وإسماعيل مدني مدحويني إسماعيل عمر جيل مدحويني وحاتاي أبو مدحويني وحاتاي زوج مدحويني waxaad tahay madaxweyne waxaad dareemaysaa inta waxaan u leeyahay aabba caruurtiisa ka maqan ma jeceshaa inaad ilmahaaga ka maqnaato ma jeceshaa xaaskaaga inaad ka maqnaato madaxweyne bari waxaa la is xisaabin doonaa adduunku waa 2 maalmood laakiin aakhira la isku xisaabin doonaa waxaa laga yaabaa inay jiraan hay'ado ka hooseeyo oo xiritaankiisa ku shaqo laha laakiin waxaa tahay qofka mas'uulka wax laga weydiinayo qiyaamada marka la tago walaalkan waa dad dhalinyaro oo soo kacay wadankaaga waa ninkii lagu faani lahaa isagoo kale oo wadanka sharaftiisa iyo dharkiisa xambaarsanaa oo ramsi u ah waxaan ka codsanayaa si sharaf leh oo wanaagsan in walaalkaasi cadaalad u helo inaad xorriyadiisa loo celiyo in dhibaatada uu ku jira intaan ba la gaadhin meel kale meesha iyo wadcigiisa wax laga qabto la bedelo shacabka reer Jabuuti waxaan leeyahay idinkuna wadankiina ilaaliya oo wadankiina insha Allah ta'ala iska burburinina wadanka dadka iska leh shacabka Soomaaliyeed oo baraha bulshada aan wax badan ku arkay oo laga yaabo inay dad badani siyaabo kala duwan u cabirayaan Jabuuti wadamada dariska noola mid ma ah waa dalkayagii waa dadkayagii wax badan baan walaaleeya shalay markaynu burburnay wax badan bay inoo qabteen dhabarkayna saareen mutamarkii carti iyo wixii ka soo bilaabmayba inkastoo oo la yiraahdo waxyaabahan mushaakilka u waaweyn oo maanta Soomaalida nafteed 4.5 la yiraahday nafteeda meesha lagu asixiyay haddana Jabuuti waajibkeedii bay gudatay annaga nafteedu dalka Soomaaliya ninkii taariikhda yaqaana ee 1974 halkaas sano oo madaxweynihii Soomaaliya siyaad uu wadanka dhanka ee Afrika dhan uu ururkeeda madax ka ahaa waxaan aqriyay 17 shir ama goobood oo uu keenay siday xorriyadda Jabuuti u qaadan lahayd marka shalay bisaasaa loogu ordaayay iyaguna inay ordaan waajib bay ku ahayd laakiin waxaan rabaa inaan iraahdo insaanimada iyo walaalnimada iyo islaamnimada iyo danqashada intuba waxay keenayaan in la ilaaliyo cadaaladda walaalkaana waxaan ka codsanayaa madaxweyne
inaad mar labaadan kaa codsan aniga inta kale badan ee kaa codsanaynaba in insaaniyad loo fiiriyo in walaalka muslimka ah laga soo saaro meeshu ku jiro cadaaladiisana uu helo aad baad u mahadsantihiin وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته